وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. maanta waxaan jeclahay inaan dhowr qodob ka dul istaago nafta iyo isbedelka horumarinta ku dhaca aadanaha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray, wuxuuna abuuray cibaado. nafta aadanuhu waxay la falgashaa dhacdooyinka nolosha maraya. hadba maalinta ka dambaysa waxa uu qofku noloshiisa la kulmayo wuxuu u waajahaa qaab ka duwan dadka kale. waxa isbedelo badan ku yimaadaan fikirkiisa iyo waxyaalaha uu aaminsan yahay. wuxuu galaa waxay culimadu ugu yeeraan qaab noloshiisa uu la qabsaday isla markaana caado uu ka dhigtay. nafta aadanaha waxay baahi u qabtaa maalin kasta isbedel in la sameeyo. Cabdullaahi ibn Mas'uud radiyallahu anhu wuxuu oranayaa maalin aan camal ii siyaadin naftayda oo aanan sidii shalay aanan ka fiicnayn, maalintaas kama mid ah cumrigayga. nafta aadanuhu marka waxay u baahan tahay nolosha ay la qabsatay waxa dhici karta inay tahay mid qaloocan ama se laga fiican yahay. waxay u baahan tahay inay isbedel joogto ah lagu sameeyo oo qofku maalin kasta oo dhalata uu noloshiisa ku soo kordhiyo wacyi iyo fikrad iyo waxqabad fiican. baahidaas isbedel oo ah mid muhiim ah haddii uu qofku isbedelkaas samayn waayo, waxay dhahaan culimmadu naftiisu waxay ku jirtaa wax la dhaho meeqaanka raaxada. meeqaanka raaxada waxa weeye waa qaab qaloocan oo naftiisu ay jeclaatay inay iska seexato, inaysan caqabadaha jirin, inaysan wax qabsan, inaysan adduunkana u shaqaysan, aakhirana u shaqaysan. qofku wuxuu noqonayaa dhaqanka joogtada ah mid aan ka maarmin. wuxuu noqonayaa qof caado lafta iyo ludda ka gashay waxa uu ku dhaqmayo. culimada nafsigu waxay ugu yeeraan meeqaanka raaxada. macnaheeduna waxa weeye dhaqamadaas uu samaynayo wuxuu dareemayaa raaxo gaar ah oo naftiisu sida ay la qabsatay. waxaa hubaal ah marka Soomaalidii horena way ka maahmaaheen, waxay dhaheen caado ka adag. qofku markay naftiisa wax barato oo ay la soo qabsato way ka adag tahay. waxaa jirta sheeko cajiib ah oo sheeko xariir ah oo lagu qurxiyo arintaas caadadu sida ay dadka uga adag tahay. waxaa jiray rah iyo dibqalooc marka roob badan ayaa da'ay. roobkii markuu da'ay ayaa dibqaloocii biyihii khatar ku galay. markaasuu rahii bariyo wuxuu ku yiri, raho waxaan kaa codsanayaa inaad biyaha iga gudbiso. markaasuu wuxuu haddaan biyaha kaa gudbiyo sidee suurtagal ku tahay inaad nabadgeliso oo aan micidaada uga nabadgalo. markaasuu wuxuu u ballan qaaday inuu ka nabadgelayo micidiisa. ka bacdi markii taas ay dhacday ayuu rahii dhabarka wuxuu u ritay dibqaloocii biyihii ka tilaabiyey. meeshii u dambeysay biyihii u badnaa markuu ka sii saarayo ayaa dibqaloocii wuxuu arkay raha calooshiisa oo dhaqdhaqaaq yar samaynaysa. markuu neefsanayo ayay dhaqdhaqaaq samaysaa. markaas ayuu intuu gacantii qaaday ayuu ku duray. wuxuu ku duray rahiina halkaasuu ku dhintay. micidii markuu ku muday ayuu rahi halkaa ku baktiyey. dibqaloociina halkaasuu ku maanshooday oo biyihii ayuu ku baktiyey. markuu dhimanayay ayay dhaheen waxa uu dibqaloocu lahaa inna tabca ghulaab, dabeecaddu kaa adag ama si caada kaa adag. waa meesha ay ka timid maahmaahda Soomaalidu. maahmaahda Soomaalidu marka caadadaas qofka dhaqanka uu la qabsaday maalin ayay qofka ka takhalusaysaa, waana maalinta ugu liito oo u baahan yahay naftiisa inuu isbedel ku sameeyo. waxaa jira qodobka ugu muhiimsan ee qofka inuu naftiisa horumariyo si uu adduunka iyo aakhiraba u guuleysto. waxa aasaas u ah dareenka isbedelka inuu dareemo. ma u baahan tahay inaad isbedel samayso? ma dareensan tahay naftaadu inay u baahan tahay sidaan aad ku sugan tahay si ka duwan? waa maxay dabeecadaha isbedel doon ee adiga kaa muuqda? taa macnaheedu waxa weeye qofku inuu ogaado meesha uu u socdo iyo meesha uu ka socdo. waa inay qofka wax ka maqan yihiin. culimadu waxay dhaheen qofkan waa inuu tamuux yahay oo wax ka maqan yihiin oo wax baahi goobayo. waa inay jiraan wax uu raadinayo oo uu ku haminayo. waa inay jiraan riyo uu ku riyoodo oo uu doonayo qofka inuu xaqiijiyo. markaas ayuu jeclaanayaa inuu naftiisa isbedel ku sameeyo. haddaba si aad isbedel u samayso, qodobka saddexaad waxa weeye waa inaad mas'uuliyadaada qaado. waxaa jira dhalinta maanta joogta mas'uuliyadooda ma qaadaan. wuxuu aaminsan yahay hooyada iyo aabaha ee mas'uuliga ah. isagoo 20 sano gaaray ayuu wuxuu aaminsan yahay inay cid kale mas'uul ka tahay. waxaad arkaysaa maanta dhalinyarada joogta inuusan mas'uuliyadaba diyaar u ahayn. waalidka waxaa laga rabaa xilliga ay yar yihiin dhalinyaradu, caruurta yar yihiin in mas'uuliyadda loo diyaariyo. mas'uuliyadaada marka qaad 100% cid kalena ha ku halaynin. haddii aad rabtid horumar waa inaad aaminto naftaada inaad adigu mas'uul ka tahay.
naftaada marka aad mas'uul ka noqoto naftaada marka aad mas'uuliyadaada qaado ayaad hormaraysaa dadka qaar ayaa waxay iska dhaadhiciyaan mas'uuliyaddan inuusan isagu lahayn laakiinse ay jireen dad kale oo mas'uuliyadda leh dad kale oo leh hawshan ka mudan inay jiraan qofku markuu cid kale saaro waxay dhahaan bare contemplation ama isqaataad marxalatul isqaataad bi carab tirada qofkani mas'uuliyadiisii iyo dib hawshan qofkii mudnaa wuxuu saarayaa dad kale anigu waxba noqon lahaa ee waxa mas'uuliyaddan iska leh dawladda iska leh waxa iska leh qaraaba iska leh waalidka iska leh waxaasan soo helin laakiin wuxuu ka dhuumanayaa inuu mas'uuliyadda naftiisa u qaado qaybtii lixaad uu ka qaadan lahaa qodobka ku xiga waxa weeye qofku markuu rabo naftiisa inuu isbedel ku sameeyo waa inuu naftiisa la hadlaa naftaada la hadal qof kasto adduunka ku nool naftiisa uu la hadlaa waxyaalo badan oo aaminsan yahay ayuu ugu celceliyaa la sheekaysigu naftu waa mid dhaca maalin kasta waxay dhahaan kumanaan jeer buu qofku naftiisa la hadlaa haddaad isbedel fiican rabto oo aad inaad kula sheekaysato naftaada isbedelka aad doonayso haddaad naftaada kula sheekaysato waxyaalo fiicanna waad gaaraysaa haddaad naftaada kula sheekaysato waxyaalo xunxunna xumaantaas ayaad ku jiraysaa qodobka u dambeeya waxa weeye aamin oo isku kalsoonow kalsoonida waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka inuu isbedel sameeyo ku dhaliya maxaa yeelay isbedelku ma fududa haddii laakiin aad kalsooni leedahay wuu kuu fududaanaya wuxuu u baahan yahay inaad aamintid naftaadana aad ku kalsoon tahay inaad samayn karto waxaa jira aaminaadu waxay dhisaysaa qofka kalsoonidiisa qof hadduu aaminsan yahay waxa inuusan qaban karin dadaal kastoo uu galo weligii ma xaqiijin karo si aad isbedel fiican naftaada ugu samayso waa inaad aamintaa oo ku kalsoonaataa naftaada maroodigu markuu yar yahay xarig yar baa lagu dabraa marka uu weynaado marka xarig yaraa ku dabra meelna lagu xiraba waagu yaraa waxba lagu xiri jiray loox iyo tiir iyo waxa lagu xiri jiray laakiin maroodigu markuu weynaado xariga lugta looga xiraya wax kale lagu ma xirayo sababta ma taqaanaa maroodigan yaraantiisii ilaa uu ka weynaaday waxa uu la soo aaminsiiyay inuu xarigii iyo tiirka ku xiran yahay oo uusan marna ka fakan karin maxaa yeelay isku dayadii isku soo dayay oo dhan ayuu ku fashilmay sidaa darteed wuxuu aaminsan yahay sida loo xiray inuusan marnaba ka fakan karin haddii marka naftaada xarigaasi ku dabran yahay suurtagal ma inaad guul gaarto waxaa naftayda naftiina u dardaarmaya inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsano oo aan ogaano naf kasta isbedel bay u baahan tahay guriga asaaka ka kacday ee gogasha ka kacday in la hagaajiyo u baahan tahay maktabad haddaad kitaabka akhrinaysay oo kutub kala soo degtay in la hagaajiyo u baahan tahay suuli haddaad saaka gashay oo aad ku xaajaysatay in la hagaajiyo la nadiifiyo u baahan yahay haddaan la nadiifin maxaa dhacaya xaaladiisu si aan loo bogin ayay noqonaysaa naftaaduna sidaasoo kale iyada uga baahi badan inaad isbedel ku samayso ku soo dhawaada qof walbana naftiisa ha ku mashquulo ilaahay naga dhigo kuwii ka faa'iideysta maalmaha barakaysan والسلام عليكم ورحمة الله الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثل